dhismahan cusub iyo qalabkan casriga ah waxaa xilligan lagu soo kordhiyey deegaanka Daarasalaam ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ay weli ka socoto damaashaadka shacabka ay ugu dabaaldegayaan maalinta saddexaad ee munaasabadda Ciidul Fidriga. Maamulka deegaanka ayaa qalabkan ugu talagalay in ay uga faa'iideystaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa si ay carruurtooda uga faa'iideeyaan qalabkan cusub ee deegaanka Daarasalaam lagu soo kordhiyey. Mar aan booqasho ku tagnay deegaankaasi si aan u ogaano damaashaadka shacabka iyo farxadda munaasabadda ciidda waxaan la hadalnay qaar ka mid ah carruurta iyo waalidiinta tagtay deegaankaasi. maasha Allah wallahi maxali dhaha soo daayirsiyaad waxaan ka imaaday degmada suuq xaalaha teeda kale to maasha Allah Daarasalaam waa meel aad u qurxoon damaashaadka iyo kuwa aan farxadda ciidda tan kale to maxaa dhahay waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel walba ay ku nool yihiin dunida daafaheeda waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair. magacayga oo ku bilaabaya Saabir Saciid Cali salaamaya dhammaan muslimiinta iyo waalidiinta hooyada iyo aabaha safaan u salaamaya iyo Universal TV oo maanta soo qayb gelisay Daarasalaam aad ay ciid wanaagsan. soo dhaw magacaaga Ilhaan Bashiir Salaad. Ilhaan degmada ka timid degmada suuq xoolaha ka waran maanta sidee u ciiday si wanaagsan haye yaa salaamaysan dhammaan muslimiinta iyo hooyada aabaha haye hooyada magaceedu waayaan Cabdi Casiis Maxamuud aabaha magaciisu waa Bashiir Salaad Bare haye yaa kala salaamaysan dhammaan muslimiinta iyo inta Daarasalaam joogto waxaa dareemi karnaa macna aadna ugu faraxsanahay dalkeena in uu yahay meel aad u qurux badan oo waliba aan ka liidan Washington iyo Kingdomka London meeshan Daarasalaam ayaa la yiraahdaa waa meel aad u qurux badan loo soo dalxiis tago runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta u soo dalxiis tago aad iyo aad dareenkayga haddii aan cabiro ma soo koobi karo waayo maanta ayadoo farxad tahay haddana all familygayga aan la qaatay farxad labaad maasha Allah adinkoo maasha Allah ciiday oo waliba siba aad u nuuraysaa maanta marka maasha Allah alxamdulillah aad ayaan faraxsanahay ciid mubaarak dhammaan muslimiinta oo idil meesha wada joogaan iyo indhaha iyo wada muuqdo ayagoo waliba wada faraxsan maasha Allah familyiga ilmaha oo lafda maanta waa kama dambeyn farxad last action. hayeeshee beerta Daarasalaam waxay tahay beerta ugu weyn xilligan ay ku taalla gudaha dalka Soomaaliya waxaana looga yimaadaa gobolada dalka Soomaaliya sida waqooyi galbeed shabeellaha hoose shabeellaha dhexe jubbada hoose jubbada dhexe mudug galgaduud iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo dadka qaarkii ay sanadkan ka soo damaashaad tageen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Umar Maxamed Somane Universal TV Muqdisho.